markii hore waxay Haiti imikana Chad waa qaar ka mid ah dalalka ugu saboolsan adduunka eedeysyo cusub ayaa imanaya in shaqaalaha Oxfam ay lacag siiyeen dumar jirkooda ka ganacsada hay'adaha samafalku waxa ay sheegeen arrintaa inay ka naxeen madaxii ururka ee waqtiga Ronald Van Haumiron waxa uu ahaa ninka laftiisu joogay Haiti dabeed shaqada uu iska casilay markii uu qirtay inuu isticmaalay gabdhaha jirkooda iibiya 4 shaqaalaha ayaa la eriyay fadiixadii way sii kordhaysaa dalkan Britain xogayaha gargaarka caalamiga ah Penny Mordaunt waxay u digaysaa hay'adaha gargaarka ee Britain dhammaantood ee lacagta ka helaya dawladdu in la joojin doono waan hubaa inaanay micno lahayn haddii aad leedahay qad qarsoon oo macluumaadka lagu soo gudbiyo ama nidaam wax lagu ilaaliyo haddii hoggaanka sare ee hay'adda ayna ka jirin wax wanaag ah markaasi kulama shaqayn karno BBC-du waxa ay weydiistay Oxfam waraysi codsiga way diideen qoraal ayay soo saareen hay'adda Oxfam waxaanay sheegeen in la xoojinayo baaritaanka shaqaalaha la qorayo in la sameeyo khad telefoon oo dibadda ah oo xogta lagu soo gudbiyo in la sameeyo tababarro khasab ah oo nidaamka lagu ilaaliyo caddayno kale ayaa soo baxay oo la eedeynayo hay'ado kale Christian Aid Save the Children jimciyadda laanqeyrta cas ee Britain in dhammaantood shaqaalahooda baaritaan uu ku socdo inay isticmaaleen faraxumayn dad xog u yaqaana hay'adahaasi waxa ay sheegeen inaanay la yaabanayn dadku waa inay gartaan in shaqada gargaarka ee xaaladda bini'aadannimo ay tahay xad-dhaaf nolol ayaa lagu badbaadiyaa dad tabaalaysan ayaa lagu caawiyaa balse waa in hay'adaha ay xaqiijiyaan in meelahaasi ay aadaan dad fiican waa in lala socdaa waa in dadka nugul ay cod yeeshaan marka arrintan la shaaciyo dawladdu waxa ay sheegtay hay'ad kasta oo qaata lacagta cashuuraha ee dadka inay sheegto ciddii u shaqaysa ee faraxumayn samaysa fadeexadahan hay'adaha gargaarka ayaa iminka aad mooddaa inay cabsi gelinayaan dhammaan hay'adaha oo dhan